waxaan joognaa saaka iskuulka 15 May oo ah iskuul magaalada Muqdisho gaar ahaan dalka Soomaaliya caan ku ah oo la yaqaano halkaas oo aan ku daafurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maanta arday ku dhow 28,000 wadanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen waxay ka turjumaysaa in sanadkan uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed ay imtixaan u fadhiisato horumarka wadanku u talaabsanayo waxbarashadu sideedaba waa qayb ka mid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka wadanka in wax la barto waa dib u dhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhaxaadkeeda sanadkan imtixaanka waxaa gelaysa 27,000 arday wuxuu sanadka hore kaga duwan yahay imtixaanka waa markii ugu horeysay inta burburka dhacay imtixaanka lagu daabaco dalka gudihiisa lagu diyaariyo marka taas waxay ku tusinaysaa inuu sanadkan imtixaanka hore ka duwan yahay xamar waxaa lagu geli doonaa ilaa 62 goobood gobolladan waxaa lagu geli doonaa dhammaan caasimadaha goboleedyada tirada runtii aad ayay u kordhay oo markii loo fiiriyo sanadkii hore oo 20,000 ilaa 20 meelahaas ay galeen sanadkan aad ay ugu duwan tahay taas waxay ku tusinaysaa kororka ardada ku yimid waa laba qaybood markii la fiiriyo kow meelo dawladda runtii aysan maamuli jirin oo hadda gacanta soo galay iyo ayada lafteeda dawladdii oo mar walba marka dambaysa capacity u helaysa inay la wareegto in mataqaanaa xataa hay'adihii kala shaqayn jiray imtixaanaadka sida daladaha oo mataqaanaa si toos ugu soo wareejin mas'uuliyadda dawladda marka qaybahaas markaa fiirisid runtii isbeddelkaas ayaa ka muuqda waxaan rajaynaynaa marka oo dhan ardada in Ilaahay u fududeeyo marka labaadna waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay inta imtixaanaadka socdo in ay ardada ka caawiyaan waxaan kaloo ka codsanaynaa ciidamada qalabka sida in ardada u fududeeyaan mataqaanaa ay saacidaan xilliga imtixaanka galayaan iyo xilliyada wadooyinka in loo fududeeyo